وحسي وين لوgu soo dhaweeyay magaalada Boorame ee caasimada gobolka Awdal fanaanka weyn Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaaci hirgalay soo dhaweeyntani ayaa wax ka qayb qaadanayay boqolaal dadweyne ah oo kala yimid darifyada magaalada Boorame dhalinyar iyo haween ayaa u badnaa dadka soo dhaweynayay Hilaaci hirgalay soo dhaweyntani waa ay ka duwanay soo dhaweynii hore ee loo sameyn jiray bahda fanka ee imanaya gobolkani Awdal Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaaci hirgalay ayaa waxa uu magaalada Boorame ka soo galay dhinaca galbeedka magaalada Boorame isagoo aan maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa Jamhuuriyadda Jabuuti fanaanka weyn Hilaaci hirgalay ayaa dhalinyaradii iyo haweenkii soo dhaweynayay waxay ku dhawaaqayeen erayadani intaasi kadib waxa halkaas hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha xaafadda Xaasleyda Suleymaan Xuseen Aadan isagoo ka warbixiyay fanaankeena qaaliga ah Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac oo ka soo kaxaynay xuduudda Soomaaliland iyo Jabuuti magaalada Luuyaxda ka soo kaxaynay shalay galab aan u boqonay Ilaahay inagu suurta galiyay inaan soo galino magaalada Boorame han kana soo galino xagga galbeedkan ka soo galinay xaafadda Xaasta United ka soo galino dadkiisii familigiisii saaxiibadii ehliya qaraabo dhamaantii saad u soo dhaweyseen aad ugu maasantihiin dhanka kale isna waxa halkaas ka hadlay abwaanka weyn ee gobolka Awdal Cabdixakiin Qiiq oo isagu kamid ahaa abwaanadii sida weyn u soo gacan qabtay fanaan Hilaaci hirgalay hadalku ku sii badina ma aad baa u maasantii kullay nin kastaaba waxa uu wax ku yahay waa afarta weeyaan adeer ninkii macnaha nin walba kuwa inuu tixgeliyo weeyaan waa dadkaas weeyaan tan xiriirta ku leedahay waa kuwaas weeyaan wabillahi tawfiiq gabagabadii waxa halkaas ka mahad celiyay soo dhaweynta loo sameeyay Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac isagoo tilmaamay runtii maanta ma qiyaas karo shucuurteeda Ilaahay baa macaan iskale nabadqab iyo caafimaad qab isku celiyay waxaan boqolkiiba aad u mahad celinayaa sida quruxda badan sida balaaran ay soo dhaweyseen dadkaygii runtii ma qiyaas karo shucuurteeda dib bal soo si kastaba ha ahaatee soo dhaweyntani ayaa ahayd mid aad u ballaaran oo ay ka qayb qaadanayeen haweenka dhalinyarada kuwaas oo aad u jecel fanaan Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac waxaanay ku soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo sidoo kale sacabo iyo aralaas aad u qurux badan waa nuuxkadiye telefishinka caalamiga Star Boorame